Sheikh Dr. Xasan Sheikh Cali Warsame oo maanta khudbadiisii Jimcaha ka galay masjidka Saalixiyada ee magaalada Burco ayaa waxa uu kaga hadlay waxyaabaha inta badan bini'aadamku ku mutaysan karo cadaabta taasoo ah dambiye Eebbe subxaanahu wa ta'ala uga digay ibnu aadamkiisa. Sheikh Dr. Xasan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadaladiisii nolosheena markaynu eegno waad arkaysaa dadka qaar waxa loo fududeeyay sharka loo fududeeyay wuxuu saamaleeyaa u soo jeedayaa u kallahayaa u fakarayaa u safrayaa isku mashquulinayaa maanka iyo maskaxda kaga shaqaysiinayaa sidoo khalqiga Allah subhanahu wa ta'ala u fasahaadin laha sidoo khamriga u faafin laha sidoo qaadka dad badan u gaarsiin laha sida uu xumaanta dadka u bari laha wadada noocaas dadka qaar loo fududeynaya oo marka dambana gaarsiinaysa ila jahannam wa bi'sal masir dhinaca kale dad baa Allah subhanahu wa ta'ala khayrka u fududeynaya wadadeeda loo sahlaya Allah subhanahu wa ta'ala waafajinaya waxa soo dhan Allah subhanahu wa ta'ala isaga ayaa bixiya نبي الله شعيب وكيلها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب توفيق ذا إله يبان كسوية عدة وحي وافتشنيس وحان ما قناه يا خير كأن دون أيه عدة كلية وافتشنيس وألا سبحانه وتعالى Sheikh Dr. Xasan Sheikh Cali Warsame isagoo khudbadiisa Jimcaha sii wata waxa uu farta ku fiiqay khaladaadka iyo dambiyada ay ibnu aadamku inta badan sahashadaan adiga kuma saarna Allah subhanahu wa ta'ala qacantiisa waxa uu ku hayo laakiin adiga waxa ku saaran amalka muuqanaya inaad wanaajiso intaad xumaanta walaaqato inuu qofku yiraahdo ilaahay baa ii qadaray ilaahay baa igu keenay tanoocaas waxba ku tarimayso لكن هذا عملك كده شو أد وناجسه توحكوا أنفعيسه وتنوع سوي هذا كيسا لما قبضت أيام باديها كيمانية وتوفيق ذا الله سبحانه وتعالى وبحيه إنني وحي بريس حق الدين تين برته ويحجابنا يسا نين شرف له مقعله وقيم لبا سودونيه diinteeda iyo aqoonteedu ku soo doonaya midina waxay u baaraysaa xagga qaadkay u baaraysaa kabar iyo maqaaxibay ka bilaabaysaa dadka kuwii ugu liitaba isugu imanaya habeen walba jid nafteeda lagala gorgortamaya oo waxa weeye lagala baayactamaya waxa weeye waxay mucarrad u tahay oo ay halis u tahay waxa weeye habeen walba illa fitneeyo walaga yaabaa in badan oo kamidi duruufi inay ku kaliftay laakiin wadadaas ay qaaday wa tawfiiq Allah subhanahu wa ta'ala midba waxa weeye xagga khayrka u baydhaya xoolihiisa wuxuu ku bixinaya wax wanaagsan masaajidu ku dhisaya awqaaf buu ku dhisaya dad tabaalaysan buu wax ka taraya wax ajarkiisu markuu xitaa dhinta uu soconayo ayuu Allah subhanahu wa ta'ala xoolihiisa u galinaya midna wuxuu ku bixinaya wax ilaahay cad galinaya amal ka haraya haday tahay heesa la faafinayo musalsaladan wanaagsanay colaad la hurinayo iyo muraafaqad wax laga yaabo dhibaatadeeda iyo dambigeedu waligiiba inay la socoto raad ka harayo aan wanaagsanayn baa laga yaabaa xoolihiisa inuu ku bixiyo ugu dambeyn Sheikh Dr. Xasan Sheikh Cali Warsame waxa uu walaalaha muslimiinta ku wargeliyay inay isu naxariistaan isla markaasina kaalmo iyo isqaan qabasho ay isu fidiyaan waxaad ogsoonaanaysaa tawfiiqda Allah subhanahu wa ta'ala u bixiya inaanay xad lahayn tawfiiqduna kuma koobna hanti kuma koobna cilmi kuma koobna inta aad hayso xoogaaga iyo waqtigaaga inaad ummadda wax ka siiso oo aad khayrka ka shaqayso waa tawfiiq weey walaalayaal waxaynu u baahanahay si Allah subhanahu wa ta'ala dunya aakhiraba oo inoo waafajiyo khayrka inoo waafajiyo Allah subhanahu wa ta'ala inoo karsiyo waxa loo baahan yahay horta Allah subhanahu wa ta'ala illa weydiisto Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco